والإنسان همي وين سيدا وحبا مبدل كرا ولو كان طفلا إن يرنها هذا مرة ما يسنتين إنه إن يري الدولة دم بدبادين كرا أما مجتمع لأنه دبقدي كرا فحقيقة شرته وأي نبي محمد بك ورمي صلوات الله وسلامه عليه حديثك وضع أخردان صحيح الرياض كأنه أنت بدن كل جنوه صاحرك يا غلامك حديثك محوشي صاحر إنه شري من بقرة أو سحر لها أو سحر له كجبوبي أو دبتنا مركو كجبوبي سحر له تليي أو يري محي وجريون يا عيد فني كوبرة سحرك واحد مالك لك أي ما دام هو حاجة اللي سكود دوالله برضه وفني عيد ولا ببركته ده حديث كبكع لكن وفني ضدك أهل النار كون برتان ما هو فني ضدك أهل الجنة برتان وفني أهل النار كون علمية ذي برتان بكمدي ساحرك كان وحش يا جاي بقر كينو كجريونية وأنا حقيقة شرت ما ملضو أنا إلهي توصق حدنيني ما ملا سحر الله هني مشرو حتى قوة ما تشوف هلا يبين أيدكم استرادان أفريقيا ملام على الله وشيء الدنيا ده سوا هورو مرتضى يحي حساب يعني هل كانوا وحباي وفوا على يشوا وين الدنيا ده بري أنا وشوفني مشرو قعدنا كلها بل الدار الشك مقالان الله يسحر الله يشوا فعليا بل واحد قارن كره حسبك مشرو حسابته وين الدنيا ده لا يقانا إلا فعليا شيء سليم لكن وأنا نظم لبرتية وحلا والشيطان ما قص ليسن عد كستو غيب كأن وحكو أوجين الله نانكو كالصونين غيبكو بقو كهيا إنسانكو وحا أنو أوجيني مدوغا مركز قشا ما بغطاه حاضو بغطاه واحد هذا مجهول كشيء هيسيسو مخيفي قفكو وحا أنو قرانين وخبغا وحا أنو قرانين وحا تجربة وبراتين لنولاتي هدو كعب سنميش لكن wax kasto kugu cusub nolosha adigoo baqbaqayo aan dhiiranayn ba tagaysa wax kasto nolosha kugu cusub qaybku waa mukhif waayo waa waxaanu qofku si uu galo wuxuu ogaada aanu garanaynin ilaahay baana xidhayo cid kale wax ku ogaan kartaa ma jirto wax yu samaa wuxuu ka sheega mooyaan idan insaanku wuxuu isku dayaa bal ay tariiqin in la maro tariiq lana lama hayade fuuxisada mooyaan tariiq loo qayb wax laga sheega ma jiro una habara ma oday wuxuu doonaya ha noqdee qoladaas tidhahdaa ama dayax baanu akhrinay ama saacabka dadkaanu akhrinay ama turub baanu dhigdhignay ama faraan dhulka ku mudnay wuxuu doonaya ha sheegee cid tidhaahda wax baanu ka soo akhrinaa kuwa un baa jira marka dadka liito oo dhami gaal iyo muslimba isku darinta liidataa qoladaa way u tagtaa nabi maxamedna waa ka yidhi salaadaba la iskama aqbalay ka fogaada saaxirkani wuxuu sheeganayaa anigu waan gaboobay dee aqoontiina anaa kuu hayee inaan yaroo laqino fatina keenso aqoon badan wiil yaroo aqoon badan baa loo soo qabto wiilka yar waxbar baa la yidhi xadiidku nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu sheegay wiilkan yari saaxirka inuu tago ka soo noqdo jidka dhexa buu ka helay nin wadaad oo meel iskaga cibaadaysta waa la yara fadhiisto ninkiina kelmadiisa xaqa ahayd buu isaga sheegay wiilkii marna kanbuu la sii fadhiistaa marna ka kale xadiidka waa ka ku arkaysa inuu wiilka la garaacay oo sixrooluhuna uu dilo reerkuna uu dilo wadaadkii markuu u sheegay uu yidhi marka adiga wax ka yara dhegaysta xaggana waa layga dilay xaggana waa layga dilayna waa ka yidhi markaad xagga ku maqantayna waxaad tidhaahdaa qoladan baa habsaamisay xagga kale markaad jirtana waxaad tidhahdaa qolada kale ayaa habsaamisay wiilkii sidii buu iskaga waday wixii buu iska dhegaysanayay waxaad kaloo meesha ka arkaysaa xaqa iyo baatilka si siman haddii loo soo bandhigo laakiin mid aan qofka lagu tarqiinin fitrada saliimkii inay xaqa raacdo waayo ilmahan yar baatilkana khabiir baa u dhigayay xaqana wadaad baa isna u dhigayay laba ninoo nin waliba wixiisa yaqaan baa nin waliba wixiisa dhigayay hal qofoo qurana waa loo wada dhigayay qofkan un baana kaana u tegayay laakiin fitrada saliimka waxaad arkaysaa xaggu u janjeedhay ilmahan yari maalintii dambe daabadii ku soo baxday dadkii waddada ka jartay neef waxaan filaya riwaayadda imaamu axmed waxay sheegaysaa inuu yahay libaax mise imaamu tirmidi rtiisa ahayd adigu riwaayadka qaarna waxay sheegayaan daabatun fadiicatun cadiima qaar baa ku tilmaamaya inuu asad ahaa calaa kulli xaal xayawaankaa muftariskee weyn baa waddadii goostay uu soo maray wiilkii
dadkii iyo tuban waddadii iyo go'an oo bahal fadhiyo wuxuu yidhi maantaan tijaabinayaa bal labadii ninkii xaqa sheegayay wuxuu u qaatay dhagaxiisii dabeetana wuu ku tuurayaa laakiin ilaahay buu baraya wuxuu leeyahay ilaahu agtaada haddii wadaadkaasi wuxuu sheegaya lagaga jacayl badan yahay sixiroole wuxuu sheegayo u fiirsa wuxuu horraysiinaya wadaadka waxaad arkaysaa inuu xagga wadaadka u janjeero xagga xaqa inuu janjeero waayo ma laha sixiroole arrinkiisa tajribe ma lehe wadaadkaa kiisa hubi buu leeyahay inuu kiisu sax yahay wuxuu yidhi ilaahu haddii kaa wadaadka lagaga jecelaya agtaada arrinka sixiroolaha maanta gacantayda bahalkaa ku dil dabeetana waa ku tuuray biisinkuu qabta wuu ku kiciyey ilaahay waa ku dilay dadkii wiilkii yaraa waxaa la yidhi mid yaroo karaamo badan baaba meesha ka soo baxay oo waa la dabagalay wiilkii yaraa sheekhii wuu u sheego wuxuu yidhi caynkan baa dhacday saasaan sameeyey maanta waddadiiba intay xidhantay oo baalkaasi goostay sheekadiibuu u warramay wadaadkii wuxuu yidhi warniyow nin maanta laga bilaabo nin iga fadli badan baan kuu malaynaya inaad tahay laakiin dadka fiican waa la itixaamaa buu leeyahy waa la itixaamaaye marka lagu itixaamanayo aniguun haysoo sheegi buu ku yidhi wiilkii yaraa marka lagu itixaamo waa la isibtilaynayaa bacda alibtilaaga ay soo tilmaamay wiilkii sidii isagoo iskaga wada ayuu noqday qof mustajaabu dacwa ah dadka ilaahay u barya oo akmaha mid aan indhaba ku dhalan mid barasay ku dhacday ilaahay intuu u barya indhuhu u baxaan oo sidaasuu noqday maalintii dambe boqorkii nin la joogay indhabeelay oo xaashiyada ka mid ah waxaa la yidhi wiil yar baa jiro dadku hadday u tagaan indhuhu ay biririx yidhaahdaan waxaa soo qaaday ninkii haadiyaadkii tirada badnaa wiilkiibuu u keenay wuxuu yidhi wiilo waxaan doonaya inaad caafimaad siiso wiilku wuxuu ku yidhi anigu dadka ma caafimaad siiyo ilaahay baa caafimaad siiya innaga malaaka in yaruun isku tuhmaa dee dadka inuu ku harowsadaa buu ugu horraysiin lahaa inuu wuxuu baadho karayo baadho laakiin wiilkani wuxuu leeyahay anuu cidna ma caafimaad siiyo ilaahay baa caafimaad siiya waa mida kale wuxuu isku dayayaa jaaniskan inuu isna ka faa'iidaysto hantidaada hayse buu leeyahay yacni qofka ahlu dacwo ah dadka jeebkooda waxa ku jira uma muuqdee dadka quluubtooda u muuqata haddaad u fakerto un dadkan jeebkooda sidaad u baadhan lahayd fa anta taajir yacni farsamadaas waad ku fiicantay ila taajirku wuxuunbuu u fakeraya un dadka xoolaas uga urursan lahaa xaggiisa ay u qaban lahaayeen laakiin qofka ahlu dacwi wuxuu u fakeraa dadkan quluubtooda suu u ururin lahaa siaad dadkan qalbigooda u heli kari lahayd marka wuxuu yidhi hantidaadan oo dhan iska hayso adigaa ku ag taallo ee hal mida yeel ilaahay rumee anna ilaahay baan kuu baryaa indhaa kuu bixinaye tawxiidka wuu u saxayaa in ilaahay wax bixiyo wuu u sheegay wuxuu kaloo u sheegayaa maxay inuu ilaahay rumeeyo wuxuu kaloo u sheegayaa isna inuu ilaahay baryi doono subxaana wa tacaala tamar kale uu leeyahy inaanay jirin ee waxa uu haystaa inay tahay un baryo qura mujarad anna ilaahay baan baryayaa buu leeyahy subxaana wa tacala isaga indhaa kuu bixin ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkii yaraana alluu u baryey indhihii baa ilaahay u bixiyey dabeetana waa kii boqorka ku noqday boqorkii baa yidhi yaa indhaa kuu bixiyey rabbigay buu yidhi awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahaynoo kuu rabbiyaa jira dunida dee mar kasta rag baa rabbiya ka sheegta caalamku intii la soo joogay mar kasta qolunba ku qooqanay dabeetana wuxuu yidhi ma midaan aniga ahaynoo rabbiya baa jira adiga iyo anigaba rabbaynu wada leenahay buu ku yidhi waa kii ninkii la garaacay wuxuu sheegay wiilkii yaraa wiilkiiba la soo qabto waa la garaacay wuxuu sheegay maxay wadaadkii saddexdiiba waa la keenay wadaadka buu yidhi isaga god u qoda oo madaxa miishaar ka mariya wadaadkii god inta loo qodaa madaxa miishaar laga qoray diinta ma ka noqonaysaa may labaa loo kala riday qof bini aadamo inta halka laga miishaareeyey laba dhinac laga dhigay waa ka baxday wadaadkii ninkii boqorka ag joogay baa la yidhi aadna ma ka noqonaysaa may buu yidhi isna labaa loo kala riday wiilka yar weli lexejaclu ka qabaa waayo dee cilmigii sixir kale isagunbaa hayaa kan diintana isagaa haya kii sixir rooluhu dee uu ka tegeyna isagunbaa haya markaa ma jecla inuu markiiba dilo ee wuxuu rabaa bal sidii kale wax loo farsamayn karo ciidan buu ku daray wuxuu yidhi kaxeeya buurta dulgeeya waxaad tidhaahdaan waa masaafada da intaad ku jirto waa wakti lagu siiye inaad sii fikirto bal inna inaad waxan ka noqon kartid buurta intaad dulgeysaan ma ka noqonaysaa dhe mise waa kaa tuuraa buurtii baa la geeyey waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa waxaanaad haysato mise waa kaa tuuraa waa kii ilaahay baryey yidhi allahuma kfaniihim ilaahu igaga filow sharkooda ilaahay baa kaga filaado buurtii intay gelgelatuma intay askar tahay daadato
wiilkii yara hadda jaanis buu haystaa soo maaha jaanis baxsasho miyaanu haysanin oo haystaa muxuu baxsan waayey yani waxay ahayd haddii uu hamigu sidaa naftiisa hadday tay jaaniskii uu hayaa intii la socotay ilaahay waa halaaga xagan uu ku socdana boqorkii baa weli jira iyo qoomkiisii uu dee dubur buu hawd ka xuli kari lahaa uu iska tegi kari lahaa laakiin muu tegina uu soo noqday boqorkii buu haddana u yimi wuxuu yidhi ciidankii aan kugu dareemeeyo ilaahay baa igaga filaaday buu yidhi doonu rara buu yidhi oo ninkan badda ha la geeyey badda ha lagu tuuro doontii baa la raray baddaa la geeyey waar ma iska daynaysa mise waa kaa tuuraa baa la yidhi ilaahay oo igaga filow buu yidhi doontii waa gelgelantoo intii kala qubatay isagaa alla ku soo reebay waa soo noqdoo meeshii buu yimi markuu meeshii yimi muu baxsanin haddana isma odhan doon dhan baad haysataa ee keligaa ayaa iska tage boqorkiibuu dib ugu tegey wiilkani hami ka weyn buu sidaa nafta wuxuu rabaa nafta tan inuu ilaahay dartii u dhiibo iyadoo rakhiisaa inay iska dhimato laakiin tolkii inuu badbaadiyaa buu rabaa mujtamaciisa inuu badbaadiyo ayuu doonayay walidaalika buu boqorkii ku soo noqday boqorkii waa kii u tilmaamay yidhi wari dili kari mayside ma kuu sheegaa si aad ii dili karto isagii baa sheegaya sida loo dilayo sharax buu yidhi qaansadayda intaad la soo kacdo oo halkan leebka la soo baxda buu yidhi kanaanadayda gamuunka iyo qaansada intaad isku xidho bismi illaahi dheh ama bismika allaahuma ilaahay magaciisa u qabo dabeetana halkaa igaga tooga buu yidhi markaa ubaad ii dili kartaa boqorkii sidii buu yaa ilaahay bisinkiisu u qabtay meeshii baa lagu xidhay waa ku dhacday wiilkii yaraasii buu ku shahiidoobay waxaa ka dhacday markaa saa xadiidkaa ku wada barateen dadkii oo dhan baa islaamay boqorku muxuu ka cararayay wiilkan iyo wadaadkii hore iyo ninkiiba maxaa loo dilay inaanay rumaynin rabbi isaga kayrkiiya laakiin hadda farsamadii wiilku maxay keentay mujtamac dhami inay rumeeyaan ma odhan karnaa wiil baa hamigu xambaaray ummad badbaadiyey marka wiil baa hamigu xambaaray muu ahayn inuu nafta la baxsado ama inuu meel kala geeyo hamigu siday waxay ahayd bulshada tan siday u islaami lahayd walow isaguna ha dhintee hamigaasa buu xambaarsanaa inuu iimaankan iyo dacwaddan isku dayo inuu dad gaadhsiiyo wuu gaadhsiiyey iyadoo weliba dadkiina aanay wax badan ka dambaynin xadiidku soomuu sheegaynin ninkii intuu godad u qoday inuu yidhi dab ku shida oo ku gura wixii diida oo qur-aanbadee kuma soo degin ka warramaya wasamaa'i daati alburuuj walyawmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اlukduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid waxaan leenahay wiilkani wuxuu xambaarsanaa hami ah inuu ummad xoreeyo idan waxaan leenahay mujtamaca waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen mujtamacaadkeenna waxaa sagiiray abnaa'i saxwa waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen walow hamiga diinta tan mujtamacu uu xambaari lahaa waxaan u malaynaya malaa'intaba la islaamlama gaadheen haddii dadkani hami weyn uu xambaarsanaan lahaa inuu ku wada xaqiiqoobaa qasab maaha yani humuumtaasi daa dhammaanteed inaad wada gaadhaa qasab maaha waayo qur'aan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegaya aakhiro ambiyo timi iyagoo aan waxba wadan ama midh wata ama laba wata ama saddex wata hamiganna xambaarsanaa laakiin ambiyadii ka dambaysaa ku guulaysatay noloshu waa taxane taariikhdu waa istaba taalla waxaan leenahay qofka mu'minka hadduu hami weyn xambaarsan yahay hami ummadeed maanta haddaad xambaarsantahay waad muqdisho si aad u badbaadisaa soomaali si aad u badbaadisaa muslimka caalamka ku nool si aad u badbaadisaa waad badbaadin karaysa ilaahay baana ugu talagalay inuu bashar wax badbaadiyo ilaahay baa ugu talagalay basharka mu'minka ahi ilaahay ariiqiisa hadduu qaatay inay bini aadamku ku badbaado inuu hiilkiisu isaguna yimaado laakiin dadka marka hamigoodu soo wada yaraaday ee wadaad iyo caalim iyo mid wax garanayaba afar carruur iyo islaan meel la dhigaba la waayey ee dadkoo dhammi luqmatulcaysh ka warwaray mujtamacoo dhammi luqmatulcaysh waagu markuu baryo waxaa laga yaabaa nin kastoo inaga midi inta shire uu galo ee uu bariis u gala iyo intuu ilaahay dartii u gala inay badantay mar kastaba intuu bariiska u galo
kaanama waqtiyada dambaabad soodhanayso haddaad aragto 5 nin oo abnaay saxwo oo meel ku wada hadlaya kollay shirkad bay samaynayaan baad soodhanaysa yacni humuumtii kala yaraatay ay humuumu tijaara baa imka badan walidaalika haddaad aragto dhowr wadaadoo meel afka isku haya waxaad tilaahday malaa uun masale tijaariya jirta ikhwatii fi lcaqiida dadku markuu intan ka yaraa abnaay saxwa ay se ka hamiga weynaayeen waxbay xaqiijin jireen waxaan xasuustaa fi 70aad waa joogaan raggii dacwada wadi jirayna iyadoo dhallinyaradu markay isu timaado lagu xisaabtamo toddobaadkan iyadoo la isweydiiyo sharka yaroo usbuuca la isugu yimaado waar toddobaadkan hebel oo imse nibaad masaajidka keentaa la isweydiin jira imse salaad ku soo xidha imkana waxa laga yaabaa noloshaadaba inaad qof suuqa intaad ka keentay keenin mid masaajidka sii joogo inaad wuxu kordhisay mooyaane mid masaajidka sii joogayoo dee walba inuun xaqa ka haystay inaad wuxu sii kordhisay mooyaane inaad weli intaad qof suuqa ka soo qabatayba dee ilaahay khayr ka siiya nimankaa tabliiqa un baaba nimanka arkaa waxa qof intay suuqa ka soo qabtaan le warkaa la tuko oo halkan baa khayr lagu hayaa ee ka dhegayso yacni hambigii dadkaa yaraaday hadda 1,000 qof baa laga yaabaa inaa meelahan iminka inta fadhfadhiday inta dhegaysanaysaatay 1,000 qof hadday caawa ku dhaqaaqdo xamar waynu ku xisaabtanno hal sano imisa masaajid keeni kartaa shaqo kale aydan qaban hal sano imisa qof baa salaad u hagaajin kartaan iyo caqiidadiisa inaad tawxiidkana u saxdo ilaahayna uu ku xidhmo un imisa qof baad u samayn kartaa waxay noqon lahayd dee usbuucii markaad nin raga ahayn midhunkeen waa 52 wiig sanadka waa 52 usbuuc sanad kasta 52 baad keenaysaa kaad keentayna dee ilaa wiig buu kaa dambeeyaa isna 52 buu keenayaa kii ka dambeeyana ilaa wiigunbuu ka dambeeya 50 buu keenayaa bal tiradaa isku dhufo waa imisa xamar inta joogta intiinaa ku filan hal sano in salaada guuda baro hal sano inay masaajid wada galaan laakiin waa goorma waa goorteed hamiga sido waa goorta ay gubayso inaan arko qof muslim oo salaad la waa goorta ay ku gubayso inaad aragto qof muslimo macsiyo ku jira waa goorta ay ku gubayso inaad aragto qof muslima oo diin la'aan u dhimanaya waa goorta ay ku gubayso inaad aragto adigoo ilaahay kitaabkiisa dhammaantii qaybsan iyo midaan faatixada la liita oo salaadu aanay ka asaxaynin aad aragto isagoo islaba tuko salaadiina ka asix weyday adna 30 baad xambaarsan tahay diintana mas-uuliyad baa kaa saaran iyo humuum baa inaga saaran waxaan leenahay haddii aynu ku talagalno inaynu dunidan waajahno waa waajihi karaynaa haddaynu ku talagalno hamiga diintana inaynu xambaarno waa xambaari karnaa haddaynu ku talagalno inaynu dhaqaalo samayno waa samayn karaynaa haddaynu ku talagalno inaynu dawlad dhisno waa dhisi karnaa laakiin waxa weeyaan hamigaynu sidnaa intuu yahay hamiga haddaad siddo waad wadi kartaa waana samayn kartaa bashar baa tahay insaanoo ilaahay abuurtay xaqana u tilmaamay caqlina leh waxa dunida lagu leeyay rag baa dayax tegay iyo nin baa dhulka galo badda hoostiisa wax ka soo saaray waa bashar kula mida mucjisaad meeshan ma jiraan yacni dadka ducafadaa loo waxyoodaa rag baa horumar wax la yidhaha ma jiro waa rag baa tashaday wax la yidhahdaa jira waad horumari kartaa waxaad doontaad ka samayn kartaa مثال بسيط على بسيط أبناء السحوة إن كمدا أو مسلم أو إنجنير عن كل مي سويدن وضن نظر القلبات كوضن كمدا وأن تجربة وحيابها كان وحاف في سيجت الماما إليه ويجي ورشب في صان صاحكي ما ترتبوا إليه ورشد عالم كنت على ما أنت وحصان صارته وإيش الله يسار إلا يوان صمينيا laakiin waxa la leeyahay buu leeyahay ummadii rabtay waxa kan laabkiisaan tagay iyagoo yaalla kuwii isagu gacantiisa ku sameeyay waa inaan Soomaaliyeedna markaasuu wuxuu igu yidhi Mustafa gaala meel ma jirtee cid iskarowday weydu igu yidhi warshadaha horumaray kan baa horumaray hal wiil baa samayn karaa yani maxaan tilmaamayaa dad ambition laan jirin dad doonis laan jirin dad wax doonaya oo raba waxan inay gaadhaan waxan inuu hiigsado qofka raba waxan inuu gaadho uu gaadhaya ha dheeraato ha dhawaato waqtigu intuu doonaya ha qaato waad gaadhaysaa waxaad u guntato aad ilaahina u tala saarato rumaysanta in alle subxaanahu wa tacaala ilaahina ku hoojin maayo ilaahay isagaa ballan qaaday inaanu qofka muuminkaa hoojin waxma hoojiya alle subxaanahu wa tacaala haddii hamigaagu uu dhab yahay طريقة مريسانا وطريق طاعة على كسوغان تاويهي وحقيقة بيا هميغاس لكن وحل لا مجتمعي هميغا كان حنبار لها اخوتي في العقيدة
inaan hadalka idinku badiyo ma rabo laakiin waxa aan rabaa inaan idin tusiyo war xoogeennii baa layna tusin waayey ilaahay qur-aanka muxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah waltandur nafsun ma qadamat ligadin wattaquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun walaa takunuu kaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ha noqonina baa ilaahay yidhi kaladiina nasuu allah kuwii alla ilaabay ee faansaahum anfusahum ilahayna naftooda caalamulislaami maanta cidi kama rag badna dunidu way ooyeysaa rag baa loo ooyayaa innaga waxaa la yidhahdaa dhasha yareeya soo maaha waa tiro badateen iyo halkan baa kasii baxaysaa maantana maalan fukiska ugu dambeeya ee maraykanku ay qoreen gaar ahaan taliskooda uu qoray gaar ahaan xisbiga maanta maamula uu qoray gaar ahaan kuwii madaxnimada isu soo sharaxay uu qoray maalan 5 nin ee madaxnimada ku bereetamayey xisbiga maraykanka ee republicanka 5 nin ee madaxnimada ku bereetamayey waxaa ka mid ah wariyihii caanka ahaan jiray la yidhahdo maxay Mark Buchanan waa nin 2 jeer isu soo sharaxay madaxweynenimada maraykanka 3 madaxweynena la taliyo ahaan jiray 2002 book buu soo saaray la yidhaahdo The Death of the West waxa la yidhaahdaa geeridii ninka cad ayaa buugga la yidhaahdaa waa raa'id alqawmi laa yakdib sahanku been ma sheego reer miyiga haddaad sahan dirataan intuu kuu soo noqdo miyuu ku odhanaya meel lama degaa intuu soo maro roobbaa yaala kaalaya taga araa'idu laa yakdib sahanku been ma sheego waa nin tolkii u sahan tegoo wax tilmaamaya oo le mustaqbalba inooma soo socdo waxa uu ka fikerayaana waxa weeyaan haweenteenni ma rabto inay wax dhasho dhasheennina wuu sii yaraanayaa 2 kasta oo ninka cadi buu yidhi meelaha qaarkood 1.2 labadii bedeli lahaa xataa ma samaynayaan buu leeyahy waa zero growth population maaha ee waxa weeyaan almost waa death buu leeyahy chapterska buugga haddaad akhrido waad ka naxaysaa مثلا waxa ka mid ah cinwaan la yidhaahdo maxay xayawaanada sii dabar go ayuu cinwaan ka dhigay waa ninka cad buu ku leeyahay xayawaanada u baahan dunida in la ilaaliyo sii dabar go ayuu ka warramaya waa waytimaanka wuxuu ka warramaya yani qadaayaad aad u waxaan uga jeedaa dunida cid aan mushkilada haysanay ma jirto laakiin caalam alislaami rag isagaa haysta taariikhaha yani ihsaa'iyaadyada ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 2 bilyan inay cagacagaynayaan inkastoo been loo sheego la yidhaahdo bilyan iyo 3 iyo meelahan saatiye 2 bilyan inay cagacagaynayaan iyagoo intaa cagacagaynaya oo dhulka ugu ballaadhan la dunida degan oo ay yidhahdaan ataaqa shamsiya cadceedda dhulka ugu badan waa enerjiga ugu wanaagsan cadceed iyo dunida la haysto waxa dunida quudiya rag 3 bilood wax beerta soo yurub lama yidhaahdo duniday kaalmaynaysaa ee waxbaa la beero oo la siinaya 3 bilood baa wax la beeraa adna 12 bilood baad wax beeran kartaa iyo haddana waa lagu quudiyaa bal u fiirso nin 3 bilood wax beerta ayaa wuxuu wax siinayaa nin 12 bilood baa wax beeran kara hamigay sidaan ba kala gedisan caalamul-islaami dhulka ugu fiican wax ka baxana cadceed labu haysta bal ilaahay wuxuu dhigay taaqadii dunida enerjigii dunida oo dhan inta caalamul-islaami hoos yaal buu yaalaa shidaalka inta khaliij ku jirta mooyane inta kalena intuu raashin ka kacay hoos taala 5 dawladood yar raw ka kacay caalamka waxa petrol yaala muslimka gunti cagiisa hoos yaala waxa macaadin taalaynta ugu badan iyaga cagahooday ku jirta wax ka maqari ma jiro ilaa iyo maxay aqliga laga degay toodina way ka tageen tu kalena ma haystaa waxay leenahay haddaynu humuum xambaarno al-umma al-islaamiyya siday maanta tay way iska bedelaysaa hammi haddii la xambaaraa uma baahni hammi kale oo dhaqaale iyo baab kale waxaan u baahnay in ilaahay kitaabkiisa sun qudho la qaato in ilaahay diintiisa si dadka muslimiinta qof wal oo kastoo muslimna inuu isku dayo kitaabkan in mas'uuliyad ka saaranta kitaabkan quraanka iyo sunnada nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi mas'uuliyad ka saaranta kelmadan idinkaga tagaya waxa weeyaan waar hamigan xambaara dunida waa bedeli karaysaa dunida idinka usaatida u ah laakiin ustaad aan ogeynba ka waran haddii maanta aad halkaa marto aad quraarada yar hesho maxay kula quraarada intay la oo waxaan qiimo lahayn soo maaha haddii kuwan wax baadhbaadho intaad mid u geyso wacaynkaa idhaa wuxuu idhaahdo al diamond baad sidataa qurarda xaggaad dhigaysaa kristalkii yaraa aad haddeer islahayd waxa weeyaan waa quraarad hadday ku idhaahaan waa diamond oo intaasoo milyan oo dollar bay ayay sidataa waxaad garan waayi lahayd halkaad u hoyn lahayd war caawa tanuna halkaad iska dhigtaa bal waagaasi intuu baryayay meelaad dhigi lahayd maad garateen ka warran ninka waxyu samaa sidii aan ogeynba waxyu samaa
cilmi aan gafba ku jirin buu haystaa maba ogaba nin meel madow socduu ku leeyahay aan ku daba galo nin meel madow gudaya ayuu leeyahay aan ku daba galo oo uu himbiriirsanaya maxaa ku daba dhigay adaaba waxyu samaa sidee